wax loogu yeeray isirsifayn xasuuq bini'aadantinimada ka dhan ah dhalaan iyo maato gowrac ayaa ka dhacay galbeedka gobolka Darfur ee dalka Suudaan gaar ahaan magaalada la yiraahdo El Fasher oo maleeshiyada jamhadda RSF cagta marisay dhacdo adeentiina badan xalay ilaa shalay maqalkeedu idinku batay bulshada caalamkuna meel adag ka istaagtay waxa lagu baaqay in dhaqso loo joojiyo isirsifayntan oo noqonaysa mid ahaan xasuuqii ugu ballaarnaa ee taariikhda casriga ka dhaca magaalo leh baaxadda Al Fasher 2,000 oo qof oo loo xasuuqay sabab la xiriirta isir nacayb sida ay xoguhu wariyeen kuwa oo badankood la toogtay iyagoo muuqaalo internetka lagu baahiyay laga duubay isla goorta dilku dhacayay caruur dumar iyo bukaano iyagoo cisbitaalada jiifa la laayay ayaa ku jira dadkan tiradoodu ka badan tahay 2,000 oo qof ee ficilkan dunida argagaxa ka dhaliyay lagu xasuuqay jabhadda RSF oo la wariyo inay taageero caalami ah oo hubeed ka hesho dalal ugu horeeyo wadanka Isutoga Imaaraadka Carabta ayaa kadib qabsashadooda caasimadda waqooyiga gobolka Darfur waxa ay sheegeen inay la wareegeen 3 meelood hal meel in ka badan wadanka Suudaan halka docdo kale xoguhu wariyaan in ciidamada Suudaan ee talada dalka haya wajahayaan xaalad cabsi leh kadib furimaha badan ee looga adkaaday asbuucyadii dhowaa dagaalkan oo sababay wax loogu yeeray mid ahaan xaaladihii bini'aadantinimo ee ugu darnaa taariikhda aadanuhu waxa uu kalifay in ka badan 25 milyan oo kamid ah dadka Suudaan qarka u saaran yihiin inay macaluul u leedaan halka rubuc ka badan dadka wadanku ay guryahooda ka qaxeen kumanaan kalena la xasuuqay raadadka hub casri ah oo lagu sameeyay dalalka Ingiriiska iyo China ayaa lagu arkay furimaha dagaalka ee howlgallada jabhadda RSF kuwa oo xogtu warinayso in sababta hubkani jabhadda gacanteeda u galay ay iska leedahay dawladda Isutoga Imaaraadka Carabta sida aynu ka xiganay warbaahin uu safka hore uga jiro wargeyska The Guardian oo warbixin faaleed xog badan sida ka qoray jihada dagaalkani aaday ee ah inuu isu bedelay loolan ka dhaxeeya quwado shisheeye oo ku herdamaya wax loogu yeeray ismuujis awoodeed dano dhaqaale iyo kuwo istiraatiijiyadeed madaxda RSF oo dacdooda sameeyay waxay ugu yeereen talaabo ay ka qaadeen saraakiishii ka dambeeyay xasuuqii ka dhacay Al Fasher ayaa tilmaamay inay xireen nin internetka magaciisu caan ka noqday oo lagu magacaabo Abu Lulu kaas oo la baahiyay muuqaalo uu dad si toos ah u tooganayo xariga ninkan oo falcelin badan ay ka dhalatay ayaa dadku qayb ahaan ku tilmaameen in xarigiisu yahay mid ay RSF ku doonayso debinta baaqyada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee lagu doonayo in ciidankani qaataan mas'uuliyadda waxa ka dhacay Al Fasher docdo kale waxa cabsi weyn laga qabaa xaaladda in ka badan 150,000 oo qof oo wali ku xaniban magaalada xasuuqu ka dhacay kuwa oo badankood dhac hantiyeed iyo kufsi la isugu daray sida ay tusayaan muuqaalada ka imanaya magaaladan masiibadu ka dhacday colaadda Suudaan waxay isu bedeshay mid sababtay masiibo bini'aadantinimo oo aan saadaasha ku jirin tan midda ka sii xag jirsanna waa dagaalka oo aan la qiyaasi karin dhamaadkiisa taasoo sii fogeynaysa rajada laga qabo in Suudaani dhaqso uga kabato colaadan 3 sano jirsan rabta